بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين waxaad ku dhawaataan cashir cusub cashirkaas oo ku saabsan maadada chemistry-ga ciwaankeena maanta waa mature branches of chemistry hore waxaan usoo baranay qeexida chemistry ayaan hore usoo baranay maantana insha Allah waxaan daraasaynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo faracyada oo leeyahay chemistry-ga chemistry aad ayuu u faracyo badan yahay marka faracyadaas aad u badan waxaa lagu soo koobaa 5 farac oo kala ah organic chemistry, inorganic chemistry, biochemistry, physical chemistry, analytical chemistry. Chemistry is a broad subject which can be categorized into 5 main areas. 1. Organic chemistry, 2. Inorganic chemistry, 3. Biochemistry, 4. Physical chemistry, 5. Analytical chemistry. And chemistry is a broad subject waa maada aad u balaaran which can be categorized taasoo loo kala qaybiya into 5 main areas 5 qayb oo waaweyn koo waa organic chemistry 2 waa inorganic chemistry 3 waa biochemistry 4 waa physical chemistry 5 waa analytical chemistry ayagoo qeexan inay imaanayaan aan hor u socono waxaan hormaraynaa physical chemistry is the study of properties and the changes of matter and their relation to energy physical chemistry is the study barashada of properties astaamaha and the changes iyo isbedelada of matter ee walxda and their relation iyo xiriirka to energy iyo xiriirka ay leedahay energy-ga ama tamarta physical chemistry ayada waxaa lagu baranayaa astaamaha iyo isbedelada walaxda iyo xiriirka walaxda ay leedahay tamarta physical chemistry waxaa lagu baranayaa astaamaha iyo isbedelada walaxda iyo xiriirka walaxda ay leedahay tamarta is the study of barashada of properties astaamaha and the changes isbedelada of matter ee walaxda and their relation iyo xiriirka ay leedahay to energy tamarta taa waa physical chemistry organic chemistry is the study of barashada of hydrocarbons compounds of carbon and hydrogen and their derivatives laga hadla organic chemistry ayadu waa barashada hydrocarbonsyada hydrocarbons waxaa loo yaqaanaa isku dhisyada ka kooban carbon iyo hydrogen and their derivatives iyo waxyaabaha laga soo dhalaandhaliya waa barashada hydrocarbons waxaa loo yaqaanaa compoundada ama isku dhisyada ka kooban carbon iyo hydrogen iyo their derivatives iyo waxyaabaha laga dhalaandhaliyay hydrocarbonsyada maada physical chemistry waa maada aad u weyn oo balaaran sidoo kale organic chemistry sidoo kale aad bay u balaaran tahay marka ayagoo faahfaahsan insha Allah way imaan doonaan intuu ilaa yiraahdo inorganic chemistry adana waa mid kamid ah branchada uu leeyahay chemistry-ga it is the study of elements and their compounds excluding hydrocarbons and their derivatives hadda waxaan soo sheegnay organic chemistry tanna waa inorganic chemistry is the study of barashada of elements walaxyada and their compounds iyo isku dhishadoodii excluding is the study of barashada of elements curiyaasha is the study of barashada of element curiyaasha and their compounds iyo isku dhishadoodii compound waa dhowr elementiyo ama dhowr curiyo isku geeya ayaa waxaa laga yaqaanaa compound and their compound iyo isku dhishadoodii dhammaan elementyada iyo isku dhishadoodii marka laga reebo hydrocarbons marka laga reebo kuwa ka kooban hydrogen iyo carbon and their derivatives iyo kuwa laga soo dhalaandhaliyay hydrocarbonsyada ilaan waxaan hadda soo sheegnay hydrocarbons iyo waxa laga soo dhalaandhaliyay in lagu baranayo branchiga organic chemistry
organic chemistry waa barashada elementiyada ama curiyaasha iyo isku dhishadoodii marka laga soo tago ama laga reebo hydrocarbons iyo waxyaabaha laga soo daraandariyay hydrocarbons derivatives waxa weeye waxyaabaha laga soo daraandariyay the study waa barashada of elements curiyaasha and their compounds iyo isku dhishadoodii excluding marka laga reebo hydrocarbons kuwa loo yaqaan hydrocarbons markuu ka kooban hydrogen iyo carbon and their derivatives iyo wax laga soo daraandariyo biology kale ama faraca kale oo analytic chemistry is the study waa barashada of qualitative identification ogaanshaha tayada and the quantitative determination caddeynta tirada of composition of matter waxyaabaha walaxda ay ka samaysan tahay guud ahaan marka laga hadlayo analytical chemistry waxay analyze garaysaa waxyaabaha maatarka uu ka kooban yahay waa barashada waxyaabaha maatarka uu ka kooban yahay markay fiirinayso ama ku samaynayso analyze gareyn ay ku samaynayso waxaa loo fiirinaa laba qayb qualitative ayaa loo fiirinaa tayo ahaan iyo waxaa kale loo fiiriyaa quantitative tiro ahaan tusaale waxaan sameeyay compound ayaan sameeyey hydrogen waxaa isku daray oxygen isku daray waxaa u saddex watar marka compoundskaasi markaan fiirinayo tayadiisa iyo tiradiisa cilmiga aan ku fiirinayo ama biology aan ku fiirinayo ayaa waxaa ah analytical chemistry is the study waa barashada of qualitative identification ogaanshaha tayada and quantitative determination iyo caddeynta tirada of composition of matter ee waxyaabaha ay ka samaysan tahay walaxda kan u dambeeya waa biochemistry. Biochemistry is the study of chemical processes that occur in living things. Is the study of barashada of chemical process habab kiimikeedka that kuwaasoo ka dhaca in living things noolaha nool ama waxyaabaha noolbadoodii baraseesyada kiimikeedka ama habab kiimikeedka ka dhaca jirkooda dhexdiisa ayaa waxaa loo yaqaanaa biochemistry. kan marka wuxuu la xiriiraa noolaha. The study of barashada of chemical process hababyada kiimikeed that occur kuwaasoo ka dhaca in living things noolaha nool jirkoodii. waxaan filayaa in aad la fahmay waa muuqaal iska yar oo cashir ka gaaban aad u dhegeyso dhammaan shantan qayb ee ugu faahfaahsan hortaada ay jiraan way ku imaanayaan halka ayaan kusoo gabagabeynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.